بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي كحرن يوتيوب قناة جوتال تكنولوجي أند كوميدي. waxaan usoo gudbi doonaa mowduuc aad u muhiim ah mowduucan oo qoseeya ama mowduucan oo qoseeya asxaabta heerka jaamacada ah ama qofka daneynaysa in ay diyaariso buug. dabcan koorsigan waa koorsi aan hore u bixiyay laakiin hadda ayaga codsadeen in aan youtube ku soo dhigo. koorsigan oo ah introduction of SBS. SBS waa software kaas oo loo isticmaalo chapter 4 macnaha data interpretation. chapter 4 dabcan chapter ognahay macnaha waa chapter only wuxuu interpretation bis waa questionnaire aad soo aruurisay ama questionnaire aad daabacatay aad dadka u qaybisay aad soo aruurisay qaabka u bedeli lahayd macnaha statistical analysis ama qaabka u analyze kara lahayd. waa marka softwarekan wuxuu ka saacidayaa the simplest way aad ku analyze kara lahayd data. softwarekan SBS laba fiidiyoyaasha laba qayb ka dhignay. qaybta ugu horeysa waa sharaxaad aan ka bixi doonaa SBS. qaybta kalena macnaha practicada xoog ku saari doonaa. qaybta online in la fahmo bis ayaan usoo geliyay. waxaan fiiri doonaa qodobadan hoos ku qoran oo ah introduction of SBS and installation starting SBS starting SBS declaration variable data entry and data analysis. SBS markaan haddaan sharaxaad ka bixino SBS dabcan sidoo ogtihiin aan saa hore usoo sheegaba waa programkaas oo loo isticmaalo in loo analyze gareeyo questionnaire-kaada iyo survey-ga ama waxyaabaha aad soo aruurisay in aad ugu bedelatid by chart on tables. waa dabcan simplest tool. waa toolkan waa tool aad u fudud waxtarkiisana aad u wanaagsan yahay. sidoo kalena minimum time waqti aad u yar ayaa data interpretation ku sameyn kartaa. installation markii aad ku shubanaysid programkan computerkaada markaad ku shubanaysid dabcan asaa wuxuu leeyahay farshanad kala duwan uu leeyahay. farshanka ugu dambeeyay hadda macnaha aniga hadda ugu jiro ana practicada ku qaadan doono waa farshan 22 farshan inuu 23 inuu imaadana macquul laakiin 22 aad ugu jiro waa kii ugu dambeeyay. marka ku shubanaysid macnaha asaga wuxuu hala fiirinayaa 60 computerkaada bitka oo yahay ama operating systemka computerkaada ku jiro 64 bit miya ama 32 bit miya. labadaas waa inaad ogaataa. hadduu softwareka 32 bit yahay waxaad ku qasban tahay computerkaada inuu 32 bit ahaadaa. sidoo kale hadduu application softwareka hadduu 64 bit yahay waxaad ku qasban tahay computerkaada 64 inuu bit yahay. dabcan inaad ku wareertiin laga yaabaa meel laga ogaadaa jirto macnaha computerkaada operating systemka oo yahay. waxaan imaanaysaa ma computer imaanay right click aad barabart ayaa ka doonaa. dabcan saa ugu jeedino weynay meesha waxaan ku qoran 32 bit operating system. software aan haystana SBS ka haystana nooca waaye waa kana 32 bit iyadina Windows 32 asoo Windows 64 noo jira. marka qaar xataa waxaan arkay asoo 32 bit ah ayuu computer Windows operating system ama Windows ku jiro computer 64 bit ah ayuu caadi isku qaadanaa. laakiin nasiibkaada tijaabal inuu ku qaato macquul. computerada qaar noo diidaa. computerada qaar wuxuu rabaa hadduu computerka 32 bit yahay applicationka SBS ka aad ku shubanaysid waa inuu ahaadaa 32 bit. sidoo kale macnaha markii aad installation ku shubanaysid installationka ku shubitaanka ku shubanaysid computerka applicationka iska fudud yahay laakiin hal macnaha caqabada jirto. halkaas caqabad oo ah inaad crack ku sameysid inaad jabisid macnaha ama inaad hacking ku sameysid. qaabka hacking lagu sameynayo waan tusi doonaa ma dhib badno. waxaan imaanaysaa application softwareka waa kana marka ku shubatid inta oo ku dhameeyo waxa la dhamaa complete finish oo ku dhaho waxaa imaanaysaa crack folderkan crack imaanay
ilaa inta labadan file soo koobiyeen marka soo koobiyeysid waa soo qaadee ilaa programka application software kasta lagu shubo computerka wuxuu galaa sida wuxuu kasii galaa program files dan ka bacdi waa raadinaya marka application ka raadinaya IBM waa kana waa kusii dhufanay SBS kasii dooranay waa sii furay dan ka bacdi inta baas ku leeyahay inta marka baas ku leeyahay ka bacdi ku shaqeynaa software kan aan fahantina amanana waa ku shubanay computerka software ka marka ku shubtay ka bacdi waa soo koobiyay files ka aan soo koobiyay waxaana ku shubay sida waxa ka sii dooranay ki software ka meesha ku sii jiro dan ka bacdi baas ku leeyahay qaybta soo gudubnay installation ka starting SBS qaabka loo qeexay dabcan programada kale ama applicationada kale ku jira computerka waxa uu ugu duwan yahay malaha adooro intuu ku soo fuulaya ama waxa imaanaysa just start menu all program ka dooranay IBM all program aan dhahno IBM meelaha aan ka fiirino bal hoos aan aado waa kana IBM select kidan ka bacdi waa dooranay taas iska fududahay laakiin inta uu saaran yahay kan inta uu saaran yahay soo kicinaysa only okay aan ka socono inta soo kaca qaabka loo kiciyana dabcan iska fududahay declaration variable shaqada inta ka bilaabanay marka shaqada inta ka bilaabanay declaration variable horta inta declaration variable inta u soo gudbin waxaad anda practice ahaan daartid inaad u sameysid waxaad ku qasbantahay inaad questionnaire diyaarsid aan questionnaire ka camal inaad diyaarisid questionnaire kan diyaarsanay qaybta wax questionnaire la'aan data ma la geli karo macnaha waa inaad xog haystid xog marka haystid ka bacdi ayaad analyze ku sameyn kartaa background information tusaale ahaan gender male iyo female waa tig la saara age ka 21 ilaa 30 age kaada diploma yani degree kaada educational level kaada experience qaybta ugu dambeysana waa kana agree strong disagree strong disagree dabcan saa u jeedin marka questionnaire kaasaan u diyaarsan yahay aadna u qaybsato oo dadka u qaybisid inuu ku soo buuxiyaan meel la tagaysa tartiib software kana soo kacsanay marka computerka ku shubanay marka ku shubtay ka bacdi soo kacsanay si tartiib u gelinay insha Allah waan tis doonaa qaabka loo geliyo declaration variable marka declare galinaysid waxa hormaraysa horta laba meel aad jirto click window aad calaamadan haddaan fiirino banhadar new waxaan practical ma sameeyno laakiin only waa fiirino kana variable view aad dooranay variable view marka dooratid dan ka bacdi waxa kasii dooranaysaa tab name variable magaciisa gelinay dan tab numeric miya string miya waa ka dooranay numeric hadii la micno data numeric bis oo number la geli kara string waxa geli kartaa m ama female ama waxa iska qori kartaa description qaybtan dabcan qaybta hore la socota tusaale ahaan qaybtan waa adoo dhahday variable declaration ka qayb kamid ah waa adoo dhahday dabcan m ha igala mid noqoto male fna igala mid noqoto female waa adoo dhahday camal female dabcan taas la declaration variable am age ka xataa tusaale ahaan 1 ha igala mid noqdo 1 hala ka ala mid noqdo 21 ilaa 30 daadada inta u dhaxaysa laantaas tuuna sidoo kale hadhowta marka waxa ku fuudaanay meesha ay gelin lahayd 21 ilaa 30 on waxa gelinay 1 in la hore computer waa u programmisay 1 waxa dhada u taagnaato 30 ilaa 30 age ka daadaas macnaha tu sidoo kale ayadana waa insha Allah practical video damba ku arki doonaa declaration variable saas laga wada micnaheeda data entry marka data ay gelinaysid tusaale ahaan variable-ka waa soo declare gareysay ilaa intaan waa soo buuxisay inta data view marka imaatid on inta imaanaysa ilaa hore soo declare gareysay 1 aad taabanay bis meeshan age ama waxa adiga 21 ilaa 30 hadda ma qoraysid ilaa intaan moodo qoraysid macnaha ilaa intaan moodo qoraysid ama male toos moodo qoraysid meeshan bis m bisa tagani ay gelina automatic wuxuu anqoonsanaa ilaa hore soo programmisay intaas inuu u taagneed male f ay gelina f kas inuu u taagneed female automatic hore u anqoonsado data view meesha data la geliyo then marka data soo gelisid waxa imaanaya qaybta ugu dambaysa oo ah data analysis data soo gelisa macnaha la analyze garayna then ka bacdi waa kana steps kala maraa analyze imaanayna analyze descriptive frequency axis doorne
analyze imaane descriptive aksi doorane frequency aksi doorane dan kabacdi haduu micnaha managa yeelayo oo dhaad there is no wax data ma jirto you must have a data in the editor wax data la edit gareeyo ama la analyze gareeyo meesha ma yaalaan insha Allah video dambe ayaan xoog ku saari doonaa practical data analysis ni la socotaa markii aan data analyze gareysana ku soo baxay marka doon table key iyo datas ka soo datadii waa kana ayadoo totalkeeda frequency-geeda dhamaan ayadoo micnaha waa kana oo caadiina by chart ahaan waa kana aan ilaa inta ay ku igay introduction-keena insha Allah iskuna diyaariyo video dambe insha Allah video dambe waa soo duubi doonaa insha Allah ka faa'iideysi wacan isku dayna inaad la share gareysid asxaabtaada videogan video dambana insha Allah next week waan soo geli doonaa soo complete practical sifican ayadoo sifican loo sharxaa practical sifican loo sameeynaa insha Allah waxaan ku balan qaadayaa in aad chapter 4 ama chapter 4 dhama complete aad diyaarsid aadna qof la share gareyn aadna hada video dambe kan hada wax ka fahantid kan dambana practical sifican fahantid